ganacsiga sharci darrada ah ee ugaarsiga faanka maroodiga iyo wiisha in dhaqaale badan ay ka helaan dagaalyahanada al-shabaab ee Soomaaliya fadhigoodu yahay. urur lagu magacaabo Action Group Elephant ayaa warbixin u gudbiyay fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ku sheegay in al-shabaab ay hesho 40% dhaqaalaha ka soo xarooda ama ka soo baxa ugaarsiga xayawaanka. waxa uu ururkani ku doodayaa in al-shabaab ay maalgeliso kooxaha ugaarsiga sameeya sidoo kalena foolka maroodiga laga dhoofiyo tekado ay shabaabka maamulaan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. tani waa sheegasho ugub ah oo iyada oo kale aanan horey loo maqal mana la oga waxa dhabta ka ah welina xarakada al-shabaab kama aysan hadlin. ugaarsiga foolka maroodiga iyo wiisha iyo weliba haragga shabeelka harmacadka iyo weliba libaaxa ayaa aad ugu soo kordhay guud ahaan qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada dhaca dacalka koonfureed ee Afrika. warbixin shalay ay soo saartay wasaaradda dhirta iyo daaqa ee koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in sanadkani oo kaliya la dilay 7,000 oo wiil ah taasi oo ka badan tiradii sanadkii hore la dilay. waxaa la sheegay in foolka wiisha iyo maroodiga uu si weyn qaali uga yahay wadamada ku yaala Asia sida Vietnam, Taiwan, Shiinaha iyo wadamo kale waxaana loo arkaa dawo lagula tacaalo cudurka kansarka iyo cudurro kale oo halis ah iyadoo kiilihii foolka maroodiga dalka Vietnam oo kale lagu kala iibsado $6,000 kaasi oo ka sarreeya qiimaha dahabka. muuqaalada qaar waxaad ku arki kartaan arxandarrada loo galayo xayawaanka oo waxa kaliya ay u dhimanayaan ay yihiin foolkooda ama faantooda iyada oo tani ay meesha ka saarayso mahmahdii Soomaaliga ahayd ee ahayd maroodi faantiisa laba cusla iyada oo haatan culayska ugu weyn ee nolosha ka haysata maroodiga iyo wiisha ay yihiin foolkooda oo ay u dhimanayaan. dalka Soomaaliya oo dagaalo ku jiray 20 sano ayay ugaartii oo dhan ka haajirtay waxa kaliya ee ku soo harayna ay yihiin sagaarada iyo dhurwaaga oo isagu laftiisa dhawaan la bilaabay in laftiisa la ugaarsado. Cabdinaasir Saxan Soxo, Universal TV.